محمد إسماعيل جواري قدوميه ugu waqtiga dheeraa ee soo mara baarlamaanka Soomaaliya tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1956 جواري oo haatan da'diisu ay kor u dhaafayso 73 sano ayaa ku fadhiyay kursiga gudoonka baarlamaanka tan iyo sanadkii 2012 kahor xilkan Professor Jawari waxa uu la taliyay dhinaca dastuur samaynta ah oo ah xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo hay'adda UNDP oo markaasi gacanta ku hayay hawlaha samaynta dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo la aaminsan yahay in loo naqshadeeyay hab sii horiya xasilooni darrada siyaasadeed iyo isqabqabsiga joogtada ah ee ka jira dalka maadaama qodobo badan oo ku jira dastuurka ay iska hor imaanayaan جواري تاني مركي لو دورتي قدوميها baarlamaanka Soomaaliya sanadkii 2012 waxa uu qaaday tallaabooyin uu ku xoojinayo awoodiisa gaarka ah ee maamul bilo kooban markii uu doornaaba waxa uu 3 bishii 11 sanadkii 2012 soo saaray go'aan uu ku laalayo qodobka 67 ee dastuurka Soomaaliya qodobkan ayaa dhigayay in baarlamaanka la kala diri karo haddii ay awoodi waayaan ansixinta xukuumadda ama barnaamijka dawladda balse go'aanka cusub ee Jawari uu ku laalay qodobkan ayaa ka dhignaa xayndaab sharciyeysan oo uu isagu samaystay uma ekaan dadaalka uu gudoomiye Jawari u galay xakamaynta baarlamaanka ee waxa uu u gudbay inuu saameyn toos ah ku yeesho shaqada xukuumadda iyadoona uu si toos ah u yeeshay awoodda ogolaanshaha wasiirada iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda koonfur galbeed ee xilalka looga magacaabayo dawladda federaalka ah arrinkan ayaa sabab u noqday inay kala fogaadaan xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka koonfur galbeed dhanka kale gudoomiye Jawari ayaa 10kii bishan waxa uu la saxiixday shirkad laga leeyahay dalka Turkiga heshiis ay dib ugu dhisayso xarunta baarlamaanka oo ay ku bixiso $100 milyan lacagtan ayaa laga bixinayaa qasnada dawladda iyo kaalmada caalamiga ah balse waxa isweydiintu noqotay sidee xaq ugu yeeshay gudoomiye baarlamaan inuu la saxiixdo heshiiskan shirkad shisheeye dalku soo ma laha wasaarad qorsheyn mid hawlaha guud iyo wasaarad maaliyadeed oo u xilsaaran arrimahan mise gudoomiye Jawari sanadihii uu xilka hayay waxa uu dhistay boqortooyo aan xad lahayn oo ka awood badan dhammaan hay'adaha kale ee dawladda inkasta oo uu hadda yaallo mooshin ka dhana Jawari haddana dhaawac siyaasadeed oo culus ayaa soo gaaray haddii uu ka badbaadana waxa uu hogaamin doonaa baarlamaan in badan oo ka mid ah aysan diyaar u ahayn inay la shaqeeyaan tallaabada ugu habboon ee xildhibaan Jawari maanta u furan ayaa ah inuu xilka baneeyo oo uu iscasilo